maxkamadda dhex taagantahay weerarka soo qaadi rabaa in aan bireeno anagoo bireynayna inaad dubno ujeedka mid gudoomiye inaad fahantaan waa ridaay ha u ridi waay nin adugu socda ahay baalootada waxay ugu dhacday halkaa farurta ayay ugu dhacday waxay qarxisay marka moonta dhan ayay qarxisay sida laga arki kara sawirka waxa loo dilay marxuumkaasi arxanka ka fog ayaa loo dilay oo naxariis darro ah waa marka laga celcelinayo marka uu rabo eedeysana geedi inuu mar raba saban ku dhufta gaaray marka laga celcelinayo xalwadii koowad afartii ahayd macnaha khaybaanka go'aystay ummadda Soomaaliyeed inay ka fiirsadaan alaabaha ay dadku u qaadayaan taaga dadka ay u qaadayaan maxamuud ka keen adiga maxamuud ka soo qaaday ku qoran deha maxamuud waa qofkii aan ka soo qaaday taliya adigu maxaa ka roontahay iyo maxaad ka galay wuxuu leeyahay qof ma taqaan taliya adigu hadalka meesha ku soo gabagabay xabadda ka ku dhacday xabadda waa iga fakar markay jeestay bugta ku xigtay iyo marxuumka meesha hal oo raacay dhagta fiiyo isla markaa fiirinayaan qori xataa maxkamadda dhex taagantahay weerarka soo qaadi rabaa in aan bireeno anagoo bireynayna inaad dubno ujeedka mid gudoomiye inaad fahantaan waa ridaay ha u ridi waay nin adugu socda ahay waa dhagar maleegid heerkii ugu sareysay hoteelka Doorbin ee Muqdisho ayaa loo diyaariyay weerar abaabulan qaraxyo naftood haliyaal ka dhex dagaalama gudaha hoteelka mindiyo qorjar ah iyo kaamirooyin loogu talagalay inay duubto ficilada bahalnimada waxaana dhamaystirnaa dhagar kasta oo heli kartay argagixisada laguna daadinayo dhiigga shacabka qadarta Allah ay tahay meesheedii ayaa loo baxsaday kuwa fajigan fahamsanna waajibkooda kuna sugnaa daafaha iyo gudaha magaalada caasimadda loona xir saaray inaan argagixisada ka soo taraabin baraha hubinta amni xaqiijinta shartoodana shacabka looga xijaabo hoodka fog aadan Cabdu Axmed aadan Cadde eedeysnaan waxa uu ku dhashay kuna barbaaray deegaanka Boro ka tirsan gobolka ama koonfurta Wajeer NFD waxaana diiwaankii ugu horeysay qawaariinta uu galay 2012 doorooyin tababar xaaladaha dagaal isticmaalka hubka noocyadiisa sida AK47 BKM iyo RPG kadib waxa lagu daray jabhad lagu magacaabo Abbas Halgan adiga hore gormeel uu xiray gormeel loo xukumay maxaan lagu xukumay shaki shabaab tuur shabaab ay gormeed hawo ku sidee tabakii bishii January ilaa sidee gormee xabsiga meesha 2020 bishii 26 qolka tababar oo qolka dadka lagu dilaa iyo waxa asaal qaataan la tababaradaas maxay noo qasir waa ku faahfaahin karaa tababaraha tababaraha waxa waaye sidoo kale maxkamadda dhex taagantahay weerarka soo qaadi rabaa waxa waaye weerarkeedu waa weerar ku wajahan ku waraacsan gaalada ma fahanti ayaa weerarku ayaan ku ahay ka socdaani see lagu bara marka see lagu bara kasad been bil amal ku sameeyay keen qori markaas ku sameeyay maya adiga marka meesha joogtay adiga xabad maridin mooho xabad maridin waa ridaay ha u ridi waay nin adugu socda ahay maya meesha u socotay soo farsamo laga siimay waa laga siiha farsamada macnaha see naqanay inta adiga inta imaatid ma naqanaysi maaho aad Doorbin ma tagtay horta Doorbin ma tageen hadda u socdaani adiga intee ka soo raacday arrintan yani waxa waaye waa ku biiray biiritaanka aan ku biiran shaqadaan ay soo horboodi bas maxay tahay shaqadaan ka qabarto marka shaqada waa shaqadii qamaasi in qamaasiga maxaa laga wadaa muxuu yahay muxuu qabtaa in qamaasi maxaa ka wadaa in qamaasi waa rag dagaalamayo sidoo kale guryaha ku dagaalamo goorma ku biirtay yaa kugu tashkiilay shabaab adiga ana qof ugu tashkiilay wala haye rabitaanka oo gal baan oo biir baay mucaskarka ka tababartay magaciisa magac male halkuu ku yaal baay ku yaal degmadeed degmada ama duurka leeyahay duurka maxaa lagu baray sal loo dagaalamayo qoryaha looga dagaalamayo yaa lagu baray yaa ku baray dadka tababaray ma mee qofada ahayd 300 adiga quraanka ma dhigatay wiliga intee ku gaartay kaafi ma xifdsantahay ilaa kaafi qaar xifdsanay dhamaan ma xifdsan maxaa lagu sheegay mar kadib adiga markii tababarka u dhamaaday kadib maxaa lagu sheegay intee ka dagaalantay jabhad ma naqano meel ma ka dagaalamay dagaal ma gelmiya sida lagu tababaray ma kii ugu horeeyay marka hadda la qabanay maana kii ugu horeeyay way kan inta maxaa la idin soo diray marka shaqeynka maasilma leh qamaasinimadu maxaa laga wadaa dhaxgal yaani maxaa dhexgelay ya hotel lagu dhex dagaalamayo dadku dhex dagaalamayo dhax oo qamaasin la ya see ku fahanteen adiga xamal hormo ma tuliga may inta ku dhalatay waajid yaa ku sheegay inuu xamal hotel ku yaalay oo ku dagaalamaysay yaa ku sheegay
waa ogaaba ha see ku gaartay qof ii sheegay male markii ugu horreysay imaato ma xamar ha qof ii soo diray ay sheegay wax igu tashkiilay ma lahan laakiin jihaadku waa waajib qof walba muslim ee maanta iimaan sheegtay ayuu waajib ku yahay qof ku tashkiilanayna ma jirto quraan ma dhigatay quraan nacam intee ku gaartay هذا أصلاً وعقرنا. ما آخر كتاب كتاب دلودي. كتابك. دلودي ما آخر كتاب. مالك استوى كبير ما آخر كتاب. مركي هذا حمر محاومات. حمرة. البرشة اللي هو المال. محبرنس. قال إنها كلبط. كذب. كذب شقة أو عادي نقول بشقولة ما هذا شق مليدوات. أوكي. محيط شغلانة كخبرته مركي. شقليلة. قريدة عسكري على صدر سنة قفل ملة ملادر أنا كعسكري أنا شغال صدر شقلي أنا قد جراولي اللي قلت معه شغال لو صدر محيط عمرك عندنا نتقنا عندنا ياكو جي بركة هوتيلك إندونيس هوتيلك سيكوتك أوكي هوتيلك هذه معنا قف طبع على مجرم مو فيديو هذه ده قف كل جسم يرتقى على مجرم مو فيديو ده قف ليجي dhammaantood saddexda naftood haliga oo markii ugu horeysay ku kulmay jilib ayaa soo wada qaatay tababar la xiriira qaabka loo garo dhismooyinka waaweyn sida looga xeeladeysto iyagoona sidoo kale bartay qaabka loo isticmaalo AK47 bam gacmeed mindida iyo habka difaacu nafsiga ee karatay tababarkan ayaana soconaya muddo 15 maalmood ah ugu dambeyn gandarsha ayaa la isugu keenay halkaas oo lagu daawadsiiyay muuqaalo hore looga duubay qawaariidtii halaagsantay iyo kuwa la xiriira qaabka loo galo hoteelada ceelasha biyo ayaana markii dambe loo wareejiyay waxaana lagu xiray aadan cabdow axmed oo dhowr jeer soo geliyay magaalada soona tusiyo hoteelka bartilmaameedka ee Doorbin Hotel aan idin dul istaajiyo habeenkii qalab qaadashada ee fulinta qorshaha Doorbin 24kii bishii 2024 afarteeda sano ay ka soo dhaqaaqay xaafadda Weedow waxaa la istusiyay in laga dago laamiga dheer ee Afgooye si aan loogu dhicin baraha la yaqaan ee ciidamada amniga waxaana la aaday wadooyin qarjajeex ah waana iyagoo wata GoPro camera mindiyo ay dhikaare feeg ah oo wasaaradda shaqada ee shaqaalaha lagaga been abuurtay bateriyaal nooca taleefanada yaryar iyo sameecadaha dhagaha saddexdooda iyagana waa isgu birabeen dad masaakiinana waa sii galaafar rabeen waxa cajiib ah mudug doomiye saddexdooda markii la qabanayo maxaa lagu qabtay intaanu bateriyaal maaskigaas midiyaashan waa 4 xabo 4 xababa waxa watay ayaga wad ujeedka markaa weydiis waxay ku leeyihiin waxa wadana kaamirada soo bandhigi doonaa kulli waa taala maxkamadda waxaan rabnay marka aan qabanno qof hotel ku jiro wuxuu rabaa hotelka cunno ka soo doontay ama seexdo ama joog in aan bireeno anagoo bireynayna inaad dubno ujeedka mid ugu doomiye inaad fahantaan meeshaas waa meesha qawaaridta arxan darrada heerka ay gaarsiisan xabad maahan waa mididaas oo qaarkood xataa afleen oo hadda aan ku tus doono oo saldardarmo leh dhagaxaana lagu jabshay waxaa loogu talagalay in qofka nafta loogu dhibo baalootada waxay ugu dhacday halkaa faruurta ayay ugu dhacday waxay qarxisay marka moonta dhan ayay qarxisay sida laga arki kara sawirka waxaa loo dilay marxuumkaasi arxanka ka fog ayaa loo dilay oo naxariis darro ah waa marka laga celcelinayo marka uu rabo eedeysana geedi inuu mar labaa saban ku dhufta gaari marka laga celcelinayo waxaa maanta loo fariistay maxkamadeynta laba ka mid ah ciidamada nisa ee ka howlgala gobolka hiiraan gaar ahaanba degmada Bulaburde kuwaasi oo gacantooda uu ku baxay allaha u naxariistay marxuum Gacal Cilmi Hagar waxaana goobta dhageysiga maxkamadda ka soo qayb galay maamulka degmada Bulaburde saraakiisha ciidamada xoogga dalka odayaasha dhaqanka iyo bulshada qaybahooda kala gidisan bal haynoo sharaxo ku xigeenka xeer ilaaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida Xasan Siyaad Maxamed Xasan Tarsad eedeysanaha koowaad debla nisa geedi daahiya cali cusuble oo ka tirsan ciidanka nisa degmada Bulaburde taariikhdu markii ay ahayd 11 bisha 12 2024 ayuu waxa uu shaqo ka lahaa kontaroolka amniga degmada Bulaburde laga sugo ee buundada waxay ku joogeen kontaroolkaas 6 askari oo kala ah 4 nisa iyo 1 military ah iyo 1 macawsilay ah waxaa maray kontaroolka oo ka yimid dhanka magaalada gaari aartoob ah uu leeyahay madaxweyne ku xigeenka Hirshabelle oo waday marxuum Gacal
waa la aqoonsaday labaajo ayuu gaarigaasi u socday labaajaduu tegey wuu soo laabtay markuu soo noqday ayaa waxaa wacay agaasimaha amniga oo markii horeeta meel dhigay ayaa wacay si uu qada markaa loo keenay uu ula qadeeyo tiimkii uu la socday markuu soo laabtay maxaa dhacay marka goobtaani mudane gudoomiye waa halka uu soo istaagay gaarigu markii baalootada koobaad lagu riday halka uu soo istaagay asadna halka kama fogo waa goobta uu asad ku marayo oo baalootada ugu daba ridayo asad wuxuu leeyahay baalootada kor uu riday bentiis waay hoos uu riday baalootada dambe gaarigii ku dhacday salbatooyada shidaalkii gashay halkaas markuu gaarigu soo marayo baalootada asada ku taal isla markaasna gumicii ku dhex jira taangiga shidaalka qoryahan labada ahi waa qoryihii baarista lagu ogaaday in ka dhaceen goobtaas aysan wax kale oo qoryihii aysan ka dhicin yaa kala leh marka labadan qori waxa kala leh eedaysane asad cali maxamuud iyo eedaysane deblanisa geedi daahi qorigan nambarkiisu inoo muuqdo waxaa iska leh eedaysane deblanisa geedi daahi waa qorigii uu ka riday 4 baalooto wuxuu u riday kor asad markuu gaariga la kulmay uu hal baalooto asigana ku riday salka daba ku dhacdo soo dhaqaaqay haddana wuxuu ku riday ilaa 5 baalooto wuxuu ku riday ilaa 4 baalooto ku riday marka waa qoraalka wax ka qaldameen 5 baalooto riday asad tira xisaabta guud marka la isku daro 4 baalooto gaariga markuu soo dhaqaaqay uu riday 3 kamid ah dhulkii ku taala dhulkii ku dhacay baalootada afaraad waxay ku dhacday gaariga waxayna ugu dhacday miraayada hore oo ku aadan darawal waxayna ugu dhacday afka qorigaani waa qoriga asad oo nambarkiisa inoo muuqdo uu ka riday halka baalood saasaan uma gelin marka ee wax u gashay saas ayuu u gashay iyo ku sii dhacday taangiga shidaalka ee wixii ugu sii dhacday qaybta lugta bidixda ugu sii dhacday taasoo ku tusinaysa marka xisaasta shakhsiga riday inuu halkaas halka dambe uu taagay waana eedaysanaha labaad ee asad kani marka waa taangiga shidaalka wuxuu saaran yahay lugta bidix uu saaran yahay taangigu halkaa dhan ku dhigaan laakiin waxay ugu dhacday qaybta lugta bidix xabadda baalootada ku dhacday markaan arkaynayna waxay ahayd xabad saasaan ugu soo dhacday ayay macna oo ku tusinaysa qofka ridayo inuu la siman yahay salkan dambe ee midku lugta taayirka dambe midku la siman yahay uu sii garab dhaafaya waa ka daba ridayaa baalootada dambe salka dambe ku dhacaysa way ka dhax bixi taangiga shidaalka galaysa marka ee waliba ka galaysa dhanka xiga lugta bidix way dhax fidhiisanaysaa marka baalootada uu asir riday kama gudbin gumacaani waa gumacii asad riday ee baalootada dambe ku dhacay ee taangiga shidaalka ku dhacay ee dhax fidhiistay waa laga soo saaray gumacaani wuxuu leeyahay 3 darajo ayuu leeyahay waxa saaran macdanka waxa ka hooseeya waa maarta waxa ka hooseeya waa qalin kan qalin waa marka taas marka waxay ku tusinaysaa berihii uu soo dhax maray in macdankii hore qaadeen in maartii ay qaadeen darajada 3aad waay oo qalin ah macna laba qob ayaa ka maqan oo soo fiiqan asad baalootadii riday gumaceedii waa kana halka ay calaamadu saaran tahay waa halka ay ku dhacday asad markuu gaarigu soo maray rasaastii kaabuwaardiga laga soo riday ee 3 kamid ah dhulka ku dhacday mid kamidna ay ku dhacday halka oo darawalku geeriyooday waa taa halkaas ay ku dhacday meesha ayaa ku aadan marka waa midig isteerimidig waa gaarigu halka waxa fadhiya darawalka fadhiyo xagee u dhacday marka xabad halkaas afka ay ugu dhacday waxay ku qaraxday dhuntaan dhanay ku qaraxday xabad qaxisay waa kana marka kursigu darawalku ku fadhiyay waa la dareemi karaa isteeriga iyo kursigu darawalka fadhiyay ilaa daaqada ilaa miraayada hore wax dhiig ku yaala waa la dareemi karaa waxaasoo dhan waxay ku tusinayaan marka darawalka in laga toogto hore in laga toogto ku tusinaysa xabadda soo gashay miraayada hore inay darawalka ku dhacday waxa cadeen u ah kursigii fadhiyay iyo daaqad miraayada ka soo horjeeday iyo isteerikii wixii oo dhan wada dhiig ah gaarigaani markii miraayada hore xabadda ugu dhacday ee darawalka marxuumka Allah u naxariistay xabaddu haleeshay awood uu ku kontarool ugu waayay
gaarigu wuu taraaraxay marka wuu soo taraaraxay saambaaga ayuu madaxa soo saartay saambaagu madaxa soo saartay marka uu saambaaga madaxa saaranayana lafuubu kuma jirtaba waa xabadu way ku qarxatay way qarxis markaanu saambaaga uu madaxa soo saaranayaahay wax nafiya kuma jiraan marxuum gaal cilmi hagaroodo waa Allah u naxariistay waa marka laga celcelinayo marka uu rabo eedeysana geedi inuu mar raba saban ku dhufta gaariga marka laga celcelinayo gaarigu saas uu halka u saaran yahay qorgii aa ka hayo uu ku furay intuu dhigto uu mar raba saban soo qaadan si uu ugu dhufta mar raba waa marka laga celcelinayo warqadani waa warqadda dhakhtarka marxuumka markii la qaaday ee xabaduhu ku dhaceen waxa la geeyay dhakhtarku wuxuu cadeeyay wuxuu uu sababsaday muxuu sababsaday marka wuxuu sababsaday risaastii geedi uu ku dhuftay uu sababsaday dukumeenti soo qoray marka dhakhtarka taa oo ka dhigan marka shahaadada cadeynta dhimashada sawirka marxuumka waa marka xara maxkamadda inay fahamto baalootadu waxay ugu dhacday halka faruurta ay ugu dhacday waxay qarxisay marka doonta dhan ay qarxisay sida laga arki kara sawirka waxa loo dilay marxuumkaasi arxanka ka fog ayaa loo dilay oo naxariis darro ah nin nuucay wahay marka marxuum gacal cilmi hagaroodo waa nin nuucay ayuu ahaa wuxuu ahaa nin dhalinyaro ah wax bartay aqoon-yahan ah mustaqbal iyo heesi leh ayuu ahaa oo ay fiirsanayaan agoontii uu aabihii ka tegay baaraha kiiskani ayaa maxkamaddu u soo bandhigay natiijada baarista ku-xigeenka xeer ilaaliyaha guud ee ciidamada qalabka sida xasan tarsad ayaana maxkamadda ka codsaday in dable nisa geedi daahiya cali ay maxkamaddu ay ku xukunto dil toogasho ah islamarkaana uu ku sheegay qisaasta marxuum gacal cilmi hagar halka eedeysana dable nisa asad uu codsaday xeer ilaaliyaha in lagu xukumo qodobadii uu ku soo eedeeyey xalwadii koowaad 40 kiilo ahayd macnaha khaybaanka goostibtaas ummadda Soomaaliyeed inay ka fiirsadaan alaabaha ay dadka u qaadayaan taaga dadka ay u qaadayaan maxamuud ka kale adiga maxamuud ka soo qaada ku qoran deha maxamuud waa qofkii aan ka soo qaaday tirabeelka weerarada kala gudbinta noocyada daraagiska ee xuduudaha caalamiga ah dartood waa ay duleeshadaan mararka qaar sistamyada amniga ee loogu talagalay ka hortagooda waana ay ugu sii daran tahay marka dhagarihii gaangiska loo soo raro sida xalwada dhex dhigo xirmooyin kiniinyaasha basiga isticmaalkooda isku bedela daraagis madax gal ah bilibili iyo tramadol koox ka kooban 4 rag ayaa halkan u taagan inay doorar kala duwan ku lahaayeen lahaanshiyaha fududeynta iyo gudbinta daraagiskan la dhexmarsiiyey garoonka aadan cadde ee muqdisho ilaa la gaarsiiyey dalka sacuudi carabiya dable booliiska cabdiraxmaan maxamed saa'il oo ka tirsan ciidanka booliiska iyo dable niisa maxamed yuusuf maxamed sonkor ilaalada shacabka waa labada shakhsi ee soo hindisay mishinkan hal jeer ayayna mariyeen 4 kiilo xalwada taasoo lagu dhex qariyey kiniinyaal loo isticmaalay maandooriyaal waana 13 bishii 2024 iyadoona ka gudubtay labada airbood ee muqdisho iyo jidda sidaasna ay ku gaartay kooxdii loo waday 10 maalmood kadib 23 bishii 2024 waxay ku dhiyeen xaddiga daroogada 4 baakad oo bilibili ah iyo tramadol isugu jira ayaa la dhex dhigay 10 kiilo xalwa waxaana kor looga daday mara baati ah kadibna ay geeyeen xafiis ku yaala kilomitir 4 oo ka shaqeeya kargooga ee Belidogle Cargo dalabka ayaana ahaa in la geeyo dalka boqortooyada Sacuudi Carabiya iyagoona reebay xiriirka shakhsiga loo geyn lahaa alaabtaasi oo ah saaxiibka eedeysana Cabdiraxmaan Saahil waan soo qaaday waan geeyay xafiiska oo Belidogle wakaas yaa kula socday alaabta waxa ila socday ninkan ay la socday maxay ahayd alaabtu waxay dhar baati ah iyo xalway ahayd alaabta waxa laga dhaxelaa la dhahay daroogo waana loo soo sheegay jumcaha ay soo sheegeen subaxii alaseydii qolada xafiiska ay soo wacday markii koobaad imaysan soo wicin markii labaad bay soo wicin maalin jumca ah taariikhdu ay 22 tahay subaxii alaseydii ay soo wicin alaabtaaday alaab kale ka shakisanahay bay dhaheen oo kareemi qasqas ah marka wax ma ka ogeed kamaan ogeyn baa ku yiri waa waday meesha geeyay oo soo gatay waa kala tagnay ka bacdi soo wacay intii joogta ugu dhaay xaafada jooga ku dhaay ma ugu dhaay waa u tagay agency asla aadnay agency alaabti geeyay magaalada si wada galnaa asiga hadda maalin dhaweeda maaragtay aan ii sheegay ninka inuu xiran yahay waa arinta loo xiray waa kaasa gudoomiye maxamuud ka soo qaaday maxamuud waxaan wax ka jira malaha ala muxuu ku warsaday arintaas faafaahay kaniiniga muxuu ahaa lagu warsaday ninka saaxiibkay ahaa Cabdiraxmaan maalin igu yimid shibis
nio wuxuu ugu dhahay klinigan bilbiliinka aa u baahanahay intaasaan kaga baahanahay intaas maxaa meeqa waa intaas 4 boqso aa kaga baahanahay annaba wada meesha lagu gado aagay gudoomiye xalwadan iyo waxaan isku dhex jiraan iyo eedan na asaga mas'uulka waa kan Ismaaciil Yuusuf Axmed Shanle maamulaha shirkadda oo isna qaaday alaabta 24kii bishii 11 2024 gudahana u geliyay airportka aadan cadde alaabta waxa ay keenin nimankan ay keenin nimankee labadan qofood toban ka ugu horeeyay anaa joogi aniga waxay ahayd kor u qaad codkaaga 4 kiilo ahayd anaa joog ahaa bis waxa inaga baara yarka lijos fiican uga baaraan dhahay shaqaalan oo ah waayo waa baar u dhahay okay bis waay alaabta kala ku darnay waa dirnay xagay ka qaateen 4 kiilo 10 kiilo markii keenay aan ma joogin galabay keeneen yarkan ma joogin meel ay dhigan dariskeena lagu dhaafeen subaxii isa soo qaad warniyo wili waxaan dhahay alaab had ma qaadi karin naga dhafaaji waa soo diray sidii ku soo diray meeshii aan ku dirnay gabadha Sahara alaabtu waa cabirnay ana cabiray alaabtan ana wixii ku jiro xawli laan ogaa wax kale ma ogin aan hadaan ogaa ana ku dhawaan lahayn dafad aan marino u jeedaanay dhimalaad alaabtu waa cabirnay ninka saaxiibkay borow aan shan alaab badan watay oo 6 shay ah san hal shay watay hal shay uu soo darsaday Sahara u dhiibaan dhahay Saharin waa walaashayna qofta ixtiraan naga dhaxeeyo waay waa si shaqeeyno sidii ugu dhiibay markii yarkii meesha la tagay alaabtii yarka waa ka gaari waayay waxay noqotay maalinta jimcaha jimcada markay noqotay yarka alaabtii qudbinka laga soo baxay uu leeyahay alaabtii lagu qabsaday waay maxaa jira waay alaab oo xawlo oo kaniin laga soo saaray lagu qabsaday eedeysana shalay oo warqadda labeelka lahaanshaha alaabta ku wareejiyay eedeysana Xasan Maxamed Axmed Borow ayaa isna aqoon hore ugu dhaxaysay darteed ugu dhiibay dhibanada Xabiiba Maxamed Jaamac oo Sacuudiga u safraysay markii ay degtana lagu qabtay madaarka Jidda iyadoo aan war wahayn waxa ay wado waxna hadda ay ku xiran tahay dalka Sacuudi Arabia arrintan qadiida inta ka soo gashaday hal boorso watay boorsada miisantay shan la hortay alaab miisamday markii miisam marka halka leebal waxa dhash alaabta igu dar leebelkii alaabta ku daray أنا ورقدي هاي الزهر مي سومرتي ليبل كي مركب في أسوتي أنا أدير ليبل زهر أنا سي نم جناك جو جيري إذا كسي سنوغ دي من على بتاع ليبل كان أنت أسهل هذاك الليبل كي ديبت ليبل كي ديبه بس مركب ميزان كعر ما عند معاك ميزان بورس أنا إيه صوت ميزانتي وحق اللي بهناي نك أنا بهناي أصلا ألعب تصاب بهناي جيري أو بهناي marka zaar waxa dhayn alaab leebalkan banaanka loo geey ninkaas loogu wareeji waa ku wareejisay idoo iska baahdi manankii marka alaab soo doonay marka shan alaabta dhiibay wax laga helay ninkii marka meesha laga qabtay saasa maqlay marka laakiin aan leebal u dhiibay zaar leebal u dhiibay ha alaabta dhiibisi shan lama ku sheegay waxay tahay maya aan boorso ilay ku warhaya maxaa wadaadi maxaa hal boorso wataan oo aan miisantay asna horta alaabta miisantay way tahay moogi taada maxay ahayd hal habban ku darstay leebelkiis alaabta wada u dhiibis maxay ahayd dhar ah dhar inta laga dhiibo xaq loo dhiibay loo dhiibay ha kiiska labadan askari ayaa asal u ah waa nimanka faldambiyeedkan daroogada lagu gudbinayo oo dal kale lagu geenayo dal uu waliba mamnuuc ka yahay lagana yaabo inuu xukunkiisa gaarsiisan yahay dil toogasho uu gaarsiisan yahay nimanka inta daroogada ka diyaariyay ee dalka Sacuudiga inay geeyaan oo ka gataan damcay waa labada eedeysane marka koowaad faa'iido ka helay marka labaad lagu qabtay taariikhii ay kala gudbeen waaye labada xalwo waa ka waana xalwada dhinacan jirta ee kalarada guduudka iyo cagaha buluuga leh way gudubtay waa tii gudubtay oo ay ku qoran tahay Cabdi Fataax Anyax shakhsiga Sacuudiga joogo ee alaabtan ay ku socoto waay shanle waa ninka agensiga madaxda ka ah ee eedeysanaha saddexaad ah alaabtan marka way gudubtay waa tii 4 kiilo ahayd way gudubtay faa'iido ka heleen lacag fiican ay ku dhufteen markaan 10 kiilo laga dhigay waa taasa kalarka kala leh qofka ay ku socoto from meesha la leeyahay waa cid ay ka socdo Cabdi Fataax waa magaca
afgarashada ay cabdiraxmaan uu leeyahay instagramka ku isticmaalo saaxiibkiisna hadda uu ka hor caddeeyey qofka ay ku socotana waa isla Cabdi Fataax Sacuudiga joogo oo ayax lagu naaneyso oo kan kii koowaad loo diray ah telefoon lambarkii Sacuudi Arabia kaasna hadda uu xiran yahay waa ninka uu leeyahay cabdiraxmaan walaalkii ayaa la xiray ajensiga uu daalaca u raacday uu yiri lacagteeda hal ii soo celiyo walaalkii ayaa dambi ku jira waaba xirteenay sawirkaani waa sawirka iskaanka airportka markii xalwada la saaro sidaas uu soo qabanaya kaniiniyaasha hadda way ku dhex jiraan lamana arkaayo oo ma soo qabanayo ayadoo video ahaan maxkamadda tusi doona labada kaniini ee ka ganacsanayeen eedeysanayaashan isla markaana u dhoofiyeen dalka Sacuudiga waa labadan kaniini Tramadol iyo Pregabalin waxay ula baxeen Soomaalida dhan ma u wada taqaano haday baaraha cafan saas u dhahay bilibili waxa bilibili ula baxay waa nimanka drugska ah ee isticmaalo oo kaliya dhaqaatiirta waaweyn ee dalka joogta hadii la weydiiyo bilibili ma taqaanin la yiraahdo hal qof oo yaqaan ma ku jiro magaciisa rasmiga ah ee loo yaqaan Pregabalin waaye bilibili waxa ula baxay nimanka isticmaalo drugska oo kaliya Pregabalin waa daawada qalalka ama suuxdinta oo loo yaqaano anti-convulsant waxay u shaqeysaa iyadoo hoos u dhigaysa fariimaha maskaxda ee keena suuxdinta ay hoos u dhigtaa Pregabalin waxa kale loo isticmaalaa in lagu daaweeyo xanuunada neerfaha ee dadka qaba sokorowga diabetic ama dadka dhaawaca ka qaba laf dhabarta oo isticmaalida balwad ahaan ee Pregabalinka ama bilibiliga waxay ka dhigtaa dadka isticmaala inay dareemaan nasasho si la mid ah kuwa isticmaalo qamriga oo kale macnaha booska qofka caadiga markuu isticmaalo uu dareemayo qamriga waxa uu ku dareemayo oo ah inuu maankiisa uu baxo maandoori ahaan ayuu si la mid u dareemaya bilibiliga saameynta uu leeyahay saameynteeda dejinta maskaxda ah ay ku kadsoomaan kuwa isticmaala taasoo u horseeda qabatin aan la iska jiri karin hadhoodii hadii uu qabatimaya hadoo dhowr jeer isticmaalo calaamadaha uu dareemo qofka iska jari rabo waxaa ka mid noqonaya in dabeecadiisa isbedesho sida xanaaq iyo dagaal badan walwal iyo cabsi sidoo kale calaamadaha jirka ka soo muuqanayo waxaa ka mid ah dhidid fara badan lalabo qarqaryo dhibaatooyin ay leedahay Pregabalinka waxaa ka mid ah qaadashada xaddiga badan gaar ahaan marka lagu daro daawooyin kale ee leh hurdada daawooyinka hurdada leh waxay keeni kartaa dhibaatooyin neefsashada ah bukaanada loo qoray Pregabalinka waxaa lagula taliyaa inay ka fogaadaan qamriga ama daawooyin kale isla isticmaalin taliya adigu maxaa karoonta iyo maxaad ka galay wuxuu leeyahay qof ma taqaan taliya adigu hadalka meeshaas ku soo gabagabay xabadda ninka waa ku dhacday xabadda waa iga fakatay marxuum X dable xooga maxamed cabdullaahi xasan ayaa ku baxay gacanta saaxiibkiis dable xooga cali maxamed cabdi oo kala tirsanaa ururka 222aad guutada 22aad ee Bulus Militara kadib markii uu isku dayay inuu waaniyo eedeysanaha waana gudaha xerada waaxda kacaan ee degmada Hodan 23kii bisha 11aad ee sanadkii hore eedeysanaha oo la murmayay taliye kooxiisa ayaa waxaa soo dhaxgalay marxuumka oo u sheegay in seegseega uu joojiyo amarka taliyihiisana uu qaato jawaabta eedeysanaha ayaa noqotay xabad taasi oo dhuunta ka haleeshay marxuumka kana baxday qaybta gadaale askartii ku sugneed goobta dilku ka dhacay oo uu ka mid yahay taliye kooxa eedeysanaha ayaa maxdarkan lagu dhageystay saddexdan ku fadhinay meesha ku fadhina marxuumka iyo wiil kale iyo aniga ku meesha ku fadhina waxa noo yimiday cali markii uu noo yimiday waan u sheegay waxaan dhahay caliyow habeenkiina waxa lagu diray howlgelin oo iskir howlgelinta ku danta la yiraahdo ku diray soon abaar adiga 6 saac 7 saac ku dhaceedii u yimaaday markaas ku dhahay caliyow markaan kugu shaqeey jiray xooga waa shaqada ka maangay jirtay maanta qorx ku hela ku warwareysaa maxaa dhacay markaan la kaftam markaas oo dhahay wartali horta bal meeshaas iga soo bedel markaas soo bedelaye dadka la shaqeeysan ku dhahanay shaqo wax kuma dhaanteen waxaas uu ma yeelayo wiilkan cali markaas dibadda uu kulaaday way hadaan la shaqeysan kar dadka waxa fal rabta falanda amaan ko furtay ilaa markaas inay kaftana u heestaa markaas marxuumka dhimo doona waxa dhacay adiga shaqa maxay shaqa ku dhaantaa taliya maxaad ula murmay hawdha
taliyaha adigu amaanka owr u furaay taliyaha adigu oo dhaana xabadu faray ka baxday tee loo bedelo marka hore u bedeshay bedelku macnaha shaqada noo kala duwneeda mooyaane hal rugan isla deganiinay oo ka tirsan hodan rug la yiraahdo kacaan meesha anigoo degan oo kooxdeeda meesha degantaa koox la yiraahdo howlgelin macnaha broshiyada iyo soo boodada degdega ciidamada aad u diyaarsan weligood waay macnaha kuwaasaan dhahay ciidankana la shaqaysanaysa habeenkii iskir ku darlayda rugtaas la wada deganayay marka asoo shaqada u soo xaadiro shaqada u yimiday annaguna shaqadeenaan joognay meeshaas ugu wada nimaday marka meesha oo marka la howlgalay qayb dhinac ka howlgashaa ها غير إنه هو بشاع. أصدقني وجوج جرماي دنا كلام ولا بدل. دنا كلام أو بدل هذا كلام ولا بدل. واقع. مركز نكاسي أو دمرة يسيق وحس رافضين. نكاس هل أريون أريون هاي أظن الشغل محي شغل كله أنت تليم حاضر أمور ما حرف كاسوده. نكان نقرأ قرأ فوق الجري تليها أظن محكران تاي محاد كاجلي وحوله هم قفمت تليها أظن هذا كمان شو سوق بيجي حبضون لك وقول عاد. markay jeestay bugta ku xigtay in marxuumka meeshaal oo raacay dhagtan fiiyo isla markaa fiirinayaan qori xataa dawladda booliiska Cabdi Fataax Maxamed Axmed ayaa laga xisaabanayaa dilka saaxiibkiis marxuum dawladda booliiska Maxamed Xasan Tifo oo kala tirsanaa ciidanka koontaroolada gurgure ee booliiska gobolka Banaadir qorigii marxuumka ku qornaa ayuu ku geystay dilka 17 bisha 2024 abaara 6 maqrin waana degmada Waabari ee gobolka Banaadir eedeysanaha oo farka ciyaar badnaa ayaa 3 alifle booliiska Axmed Odawa Maxamuud ku qabsaday inuu ka horgalo suuliga marxuumku ka soo baxay iskuna diyaarinayo oogida waajibaadka alle maadaama xilli maqrib ay ahayd eedeysana Cabdi Fataax ayaa qorigii watay marxuum Maxamed Xasan Tifo kula dhagay isagoona ka qaatay waxaana xigtay xabad uu raacsaday hal baalootana madaxa uga dhuftay marxuumka waana kan eedeysanaha oo isla goobtii dilku ku geystay lagu qabtay oo maxdarkan ka sheegay in saaxiibkiisa ay uga fakatay xabadda xilli galabnimo ay tahay salaad maqribna ay soo dhowdahay waxa u soo baxay in aan suuli aan galo aan waajibka Ilaahay aan guto salaada maqrib ay joogto Ilaahay uu naxariistay marxuumka dhintayna wuxuu taagnaa musqusha banaankeeda laba kale oo ragana meesha waa joogeen mid aan horteedii fadhiyay mid kale oo qoriga haayay oo musqusha ku jiray aniga musqusha u soo baxay midku markuu waxa iga hormaray qoriga haayay oo musqusha ku jiray qoriga ii dhiibay isla markiiba qoriga markii kor aan u qaadayay xabada fakatay marxuumka dhinta Allah u naxariistay madaxiisa ku dhacday marka dadaadu kasuma dilmeen may kasuma dilin halka xafiiska xiraalinta uu sharxay sida dilkan uu dhacay lana wadaagay cadeemo ku saabsan galkan garsoorka maxkamadda ciidamada qalabka sida askartii ku sugnayd goobta dilku uu ka dhacay ayaa laga dhageystay sida ay wax u dhaceen maalintaas marxuumka Allah u naxariistay intuu dhimo ka hor anoo meel fadhiyo u yimay kadib markuu yimay qoriga diibay wuxuu dhahay iskuulan galaahay qoriga ay si gaarsi marxuumka qoriga way diibay marxuumka musqulo aadi musqusha marxuumka uu soo daahay kadib markuu soo daahay maadaama xilli maqrib ay tahay salaad u istaagna markuu waa daahsaday waa soo baxaan waa u wacay way maqlay musqusha xageeda soo aaday musqusha intaan gaarin wiil kale musqul sugaa oo marxuumka musqusha ka sugay ayuu taagnay wiilkan iska istaagay wax yar markaan la istaagay wiilka marxuumka musqusha ka soo baxay markuu musqusha soo baxay marxuumka qorigan farta ka saaray wiilka musqul sugahayne musqusha uu aaday ninkan eedeysanaha oo ordaya maade hebelow heegan Axmedow heegan mar dhaay ana ka hormar u dhahay eedeysana dhahay Axmed muusan maqalina musqusha iska galay aniga marxuumka Allah u naxariistay iyo eedeysanaha meel ma joognay on ka hadlayno iska sheekaysanayno ninka eedeysanaha waxa ka qaaday qorowga wuxuu ka qaaday ninka la yiraahdo marxuumka oo ku qaaday Allah u naxariistay qorowga ka qaaday cabaar iska sheekaysanay oo iska kaftameen iska qoslayne waxaan ka war helay ninka ana qoriga taagay ismarkaan sii fiirinayna ninka xabadu ugu tiin marxuum markaas ninkan oo naxam waxa qabsaday qorow dhulka dhigay oo caar qolka xagiisa oo caar anigana waa soo baxay banaanka su'aalkii dijigan u sheegay ninkan qolow galay madaxa qabsay gabar u tagay wuxuu dhahay wiilan dilay shiinaan dilu dhahay istijaal waa la qabtay waa la xiray sidaas ay wax dhacantay maxaa kalifay inuu qoriga inta
oo kabka qabto oo ku aadiyo maxaa kalifaya lama filaan uu noqoto ana xataa ma ka sheekay kaas lama filaan wada ninku soo qoriga xabahta maracsanaya qoriga amaanka u fare oo raacay dhagtan fiiyo isla markaa fiirinaya qoriga xataa kaliya awood ku dhawo yani muxuu dhahaa markaas asaga markuu qoriga taas ku dhahaa maxaa afka laga sheegaya era miska dhaafsan waska hadlay waska caawiska sheegaysanayna aniga iska sheegaysanno iska mashquulsan ninkan qoriga lama filaan ku raacay arka xabad amaanka tu fure wiilkan xoogaa dalcaw saray si gudo ku jiray meel caaw u dhacdo horta waxay xilli maqribe aniga waa fadhiyey meel fadhiyey waa soo kacay waxaa imid tubada aniga wadaad kale taasla weysa qaadeen oo wada sheekaysanay marka waxaan maqlay qoray raacsiis waa jeestay markaa jeestay bugta waa ku xigtay iyo marxuumkii meesha yaal